bismillahi raxmaani raxiim. arrintaas muddo badan ay soo jiitimaysay runtii sidaad la socotaan waxay daba joogtaa arrintii khilaafkii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soo dhexgalay. marka khilaafka asiga waan ku guuleysanay alxamdulilah. heshiiska waxaa kamid ahaa wasiiradii iscasilay mas-uuliyadda isqabadkooda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahana maadaama ay heshiiyeen waa soo saxiixeen in ay xukuumadii dib ugu mid noqdaan. marka maadaama labadoodaba isku ogolaadeen baarlamaankii markii la keenay waxaa la yidhi nimankaan mar has casileen, laakiin hadda madaxweyne ra-isul wasaarihi hadday isla ogolaadeen waaba wasiiradii xukuumaddii ay ka tirsiyiin waxaa la samaynayaa. 3 maalmood markii laga doodahaya kadib ayaa xildhibaanadii waxay soo jeediyeen in kalsoonida ay kala noqonayaan oo marna nimankaas aamini karin. 190 xildhibaan ayaa soo xaadirtay. marka 175 kamid ah kalsoonidii ay kala noqdeen wasiiradaas iyo wasiir ku-xigeenadaas. 15 qofoodna kalsoonidii ay siiyeen. sidaa daraaddeed waxay ku waayeen wasiiradii kalsoonidii baarlamaanka. marka shaqadaasi guddoomiye ma tahay mid baarlamaanku leeyahay oo sharciga waafaqsan qofka wasiir noqonaya ama is casila ama aan isu casilin? baarlamaanka shaqadiisa waxay tahay asiga wasiir ma magacaabo, laakiin waxaa shaqadiisa ah xukuumadda guud ahaan inuu kalsooni siiyo ama kala noqdo. markii koowaad ra-iisul wasaaraha soo jeedinaya dadka wasiirada laga dhigahayo, madaxweynahana waa la ogolaanaya, kadib baarlamaanka la keenaya. haddii markaas baarlamaanka kalsoonidiis la waayo xukuumadda waa dhacaysa. haddana markay shaqayso kadib 6 bilood markii kalsoonida la siiyo kadib haddii shaqadeeda loo bogi waayo oo baarlamaanka mooshin ka keeno oo codka kalsoonida baarlamaanka weysana waa dhacaysa 50% hal dheeri tirada golaha shacbiga. haddii qaar kamid ah ama hal wasiir ama koox wasiirada kamid ah haddana sidii 50% hal dheeri golaha shacbiga xukuumadii oo dhisan wasiirkii mase kooxdii wasiirada ah oo kalsoonidaas waayo waa dhacayaan. waa qodob dastuuri ah. marka waxaad leedahay arrintani waa arrin aad taageersan tahay oo dastuurkana waafaqsan? aniga taageeradayda shardi ma aha. aniga heshiiska ra-iisul wasaaraha madaxweynaha khilaafkooda qofkay dhadhaxaadinahay oo dhowr jeerna keligiis galay haddana markii xagga la joogay in lasoo dhamay baan ahay. runtii aniga waxaan aad u jeclaa waan u ololeeyay in sideedii loo daayo oo heshiiskaas madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha isku raaceen. aniga taasaan runtii sabood garaynahayay, laakiin aniga waxaan ku qasbanahay maadaama gudoomiyihii baarlamaankaan ahay go-aanka aniga iskama lihi baarlamaanka iskale. wixii baarlamaanka go-aansada ayaa sharci ah. sidaasaan aniga maaragtay yaan ku ogolaaday. taasana sharci ah. marka rabitaanka shaksiga waxaa ka muhiimsan go-aanka baarlamaanka. markaas miyaan horay go'aamadii aad ku soo saxiixdeen magaalada Addis Ababa aanu baarlamaanku wadartooda u meel marinin guddoomiye? maya ma meel marinin. inkastoo maanta runtii ay yidhaahdeen heshiisyadaas waanu ogolnahay, laakiin qodobkan waxaa keenay arrimaha haddaan kuu sheegahayay oo is-aamin la-aantaas oo baarlamaanka dhexdiis ah ayaa keentay in si gaara loola soo baxo. laakiin inta kale weli baarlamaanka isma weydiinin. laakiin wax hadda buuq badan oo ka taagan ma aha. arrintaas waxaan u malaynayaa baarlamaanka inuu ku qanacsan yahay. hadday wax jiraan kolley xildhibaanada ayagaa sheegan doona, laakiin dood badan oo hadda ka taagan ma jirto. marka miyaad guddoomiye islahayn arrintii muddada laga soo shaqaynaya Addis Ababa lagu soo gaadhay arrintani way xagaldaacinaysaa oo heshiiskii dowladda dhexdeeda aha waxa weeyaan halkiibuu dib ugu laamaya? arrintaas ilmaha sababta oo ah arrintan kasii khatarsan ayaan soo marnay waana ka gudubnay. xagga markaan joognay maalintii heshiiska la saxiixayay maalintii ka horreysay oo heshiiskaba la qoray laakiin aan la saxiixin ayaa waxaa dhacday xukuumaddii in mooshin laga keenay oo la rabo annaga oo meesha joogna ra-iisul wasaarihii xukuumaddu inay dhacaan lagu talagalay oo xildhibaanada qaarkood ay keeneen oo in la joojiyo nalaga diiday. markii dambe xalaan u helnay runtii ilaahayna waa nooga gargaaray. haddii mar baarlamaanka loo qiibiyeyna maaragtay arrinta in go-aan laga gaaro ma ogiyi horjoogso kale ma laha. ayadoo baarlamaanka loo qiibiyey doodina la fulinaan mid heshiiskii xagga ahaa ma noqonin mid maaragtay is-hortaago. laakiin xukuumaddii waxay ku badbaaday markii dambe xildhibaanadii ayaa codkii kalsoonida runtii siiyey oo aqlabiyad ballaaran ah. tan hadda waxay tahay xukuumaddii midna sideeday u taagan tahay. ra-iisul wasaarihii iyo wasiiradii qaarkood waa dhisan yihiin. haddii maaragtay arrintan baarlamaanka ku dhegay oo khilaafkan ayada oo jirinba wasiire xilka waa laga qaadi karaa, kalsoonida waa lagala noqon karaa. aniga kordheeta waxay la tahay in wasiire lasoo magacaabo oo maaragtay ra-isul wasaaraha bardowsal garee madaxweynahan u geeya uu saxiixo oo maaragtay la buuxiyo quorum. marka taas aniga lama aha mid hadda dawladdu dumayso. laakiin guddoomiye miyaan la odhan karin waa nin jecelaysi oo kale haddii xukuumaddii codkii loo qaaday oo la meel mariyey in shakhsiyaad la soo saaro weliba la leeyahay waa madaxweynaha ma garanaysaa wasiiradii ay gacan saarka lahaayeen? taasi miyaanay dhibaatada sii kordhin karin haddana halkeeda ku celin karin? maya horta madaxweynaha waa madaxweynihii dalka. wasiirada oo dhan iyo wasiiradiisii ra-iisul wasaarahana xukuumadda isaga hogaamiya maaragtay wasiirada dhan maaragtay waxaa la rabaa inay u sinaanadaan. aniga kooxda ma rabno in hadda lagu sii jiro. laakiin baarlamaanka xag waa u leeyahay wasiirkii uu dhaliilo
ama kooxdii wasiiraha oo dhaliilo in maaragtay go-aan ka qaata baarlamaanka xaq buu leeyahay hebel jeclaysi iyo hebel neceb ma aha dalkii iyo dalkia loo danaynaya marka arrintaas marka lama dhihi karo hebela la neceb yahay hebela la jecel yahay wixii marka horeba ayagoo naftarooda ku kallafay inay iscasilaan oo intaas jeerna soo noqotay ayaa meesha ku jira. Gudoomiye waxaa la yidhahdaa baarlamaanka waxa weeye sharci dejin buu ahaa laakiin wakhtigiisii iyo hawshiisii oo dhan waxay ku baxday dhinacii siyaasadda ra-iisul wasaaraha cod loo qaado madaxweynaha cod loo qaado miyaa markaasi kuula muuqan inaad hawshiinii weyneed ka leexateen oo dhinac kale aadeen? runtii sharci dejinta waajibaadka anaga ay ka mid tahay in xukuumadda kalsooni la siiyo oo lagala noqdo waajibaadka anaga ay ka mid tahay in madaxweyne la doorto waajibaadka anaga ay ka mid tahay in guddoomiye baarlamaan la doorto iyo heer hoosaad baarlamaan la sameeyo waajibaadka anaga ay ka mid tahay marka baarlamaanka waajibaadkiisa marna kama dhex bixin meel allaala meeshii markaas dalka buunda debolo looga arko ayaa baarlamaanka cabaaraya aniga markaas kadib in la faagfaago oo maxaa arrintan ku dhacda in la yidhaahdo ilama aha. ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha midkoodna ma kaala soo xidhiireen arrintani sidii codbixintaasi aad u qaadeen? wasaaraha mar isoo wacay marka wuxuu ii sheegay in asiga iyo madaxweynaha iyo hadda shirgalayaan markii dambena isoo wici doonaan marka waan sugahayay weli maaragtay iguma soo celinin laakiin anaaba wacaya haddii maaragtay ilaa caawa isoo wicin subi anaaba wacaya insha allah. marka maadaama oo aad joogtay meeshii heshiiskii lagu soo saxiixay Addis Ababa wixii labada mas-uul ay isku qabteen ay ahayd arrimahan marka sideed u malaynaysaa inay u saamayn karayso xiriirkooda ama wada shaqaynta adiga iyo madaxweynaha ama adiga iyo ra-iisul wasaaraha arrintani? wax saameyn ah kuma yeelan karto aniga ayagoo isku fikiraan ahayn isku rabitaan ahayn in wasiiradan in la daayo hawshana socoto yaa dhammaantaanada wada rabnay laakiin daad naga xoog badan oo maaragtay talada nala leh oo golihii shacbiga ayaa nagu diiday